waxaan u mahadnaqayaa walaalkay wasiir Mustafa wasiirka waxbarashada iyo xirfadaha runtii martiqaad rasmiya aan ugu nimid dalka Djibouti safarkayga ujeedadiisu waxay sidii runtii aan iskaga kaashan lahayn arrimaha waxbarashada ay kamid yihiin maadaama aan nahay laba dalo walaalo jaara maadaama duruufo fara badan oo bulshooyinkaygu iyo dhalinyarta faraha badan ee wadanka ku nool ay ka sameeyeen arrimaha xirfadaha kowka ah iyo sidoo kale inaan heshiis wanaagsan oo laba dhinac wada galnaa dii la yiraahdo oo waliba aqoon kororsiya waxa laga yaqaan experience sharing oo arrimaha waxbarashada ah runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa siyaasadda guud ee madaxweynaha dowladda Djibouti ku hogaaminayo iyadoo ka timid halka barnaamijka la siiyay baahida rasmiga ah ee suuqa taala ee marketka laga keenay in la ogaado xirfadda baahida ay qabaan bulshadu sidaasna ay wasaaraddu ku fulisay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalkay wasiir Mustafa siyaasadda wanaagsan lagu leergareynayo ama lagu hogaaminayo wasaaradda waxbarashada iyo xirfadaha waxa iga soo baxay in xirfaddu ay ka soo bilaabmaan dhalinyarta reer Djibouti markay xirfadda bartaan ay dib ugu noqonayaan isla markaana fursadda shaqada ay helayaan waa talo wanaagsan waxa weeyaan waa aqoon kororsi wanaagsan runtii aan ka faa'iidnay mar walbana hadii baahidu ay ka timaado aanta bulshada ahayn waxay keentaa mid aan suuqa ku haboonin dhalinyartii wax la baro dina suuqa ay gali kari waayaan waxaan ku hambaleynayaa siyaasadda furan ee inta badan baahidaas ay ka timid xirfaduhu lala sheekaysanayo dadkii shirkadaha ee dalka joogay ee maal gashaday in xirfadaha ay doonayeen runtii la baro ay dawladda u soo bandhigaan dawladduna ay fuliso waa wax aad iyo aad lagu farxo weeye aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waad ku dhiirigelinaynaa waad ka baran doonaa dawladda aqoon fara badan oo aan halkan u nimid inaan share gareyno